السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحad baan idin rajaynayaa iyo nolol qurux badan. Waxaa jira laba astaamood oo dumarku haddii ay yeeshaan raggu ay ka daba waraaqaan. Ninka hela dumarka labada astaamood lehna xilligii hore waxa loo bixin jiray nin nasiib leh, nin biti leh, iyo nin markaas ilaahay waafajiyay nolosha tii ugu wanaagsanay. Haddaba dumarkan markay noloshooda ay soo galaan, ragga haddii ay ka baxaan oo noloshoodii ay ka baxaan oo ay furaan, raggu inta badan way ka daba waraaqaan ama way ka daba ooyaan, ama waxa dhacda xilliyada qaarna inay isbedelaanba oo xagga dhimirka iyo maskaxda ay noqdaan, ama ninkaasu naagta uu ka daba waasho. bal labadan astaamood ama labadan calaamood aynu eegno. labadani waxay yihiin dumarka jir macaan kale iyo dumarka jadiin macaan kale. dumarka jir macaan kale, jir macaanka haweeneyda jirkeedu uu macaan yahay. waxaa laga yaabaa inay dad badan oo muuqaaladeena dhagaysanaya ay kelmadaas ay la yara yaabaan oo la yiraahdo maxaa jir macaanka looga jeeda. jir macaanku wax kale maaha, waa haweeneyda hubqaad kale ee jirka qurxoon. waa haweeneyda jirkeedu u buuxo. inta badan raggeennii hore waxa ay qiimeyn jireen haweeneydu inay kuusan tahay iyo inay kub leedahay iyo inay kodan tahay. saddexdaas ayaa saldhig u ahaa. haddaba haweeneyda saddexdaasi ay ku dhammaadaan, inay jir fiican leedahay, inay kub leedahay, iyo inay dherer iyo qoton iyo joog ay leedahay oo ay soo foorarsanayso ama ay soo godanayso. haweenka jadiin macaan kale waa haweenka cuntada macaan ee cuntadooda marka ay sameeyaan dhadhan iyo damcad ay leedahay. haweenku xagga cunto karinta aad bay ugu kala bedelan yihiin, ama aad bay ugu kala waaya aragsan yihiin, oo u kala yaqaanaan, oo ugu kala khibrad badan yihiin, oo ugu kala aqoon badan yihiin, oo ugu kala karti badan yihiin. haweeneyda cuntadeeda aan lagaga daba dhufan ee ninkii dhadhamiyaba qowlalka dambe ama gowsdambeedka dambe ama xusuusta dambe ee maskaxda ku qorta magaceeda, taana lagama daba hadhi jirin. haddaba labadaas astaamood haweenka ay ka helaan raggii hore ama labada calaamadood waxay ahaayeen kuwa haddii ay ka baxaan ay ka daba ooyaan. jir macaanka waa haweeney gogasheeda aan laga daanayn. cunto macaankana waa haweeney markasta ag fadhiisigeeda oo dabadoo dhan wuu diidayaa ninkaasi inuu wax ka cuno, ilaa iyada waxay gacanteeda ku samaysa maahaane dabadda waxba kama cuni karayo. waayo iyada ayaa magaceeda waxay ku qortay carabkiisa iyo maskaxdiisa iyo dareenka iyo dhadhanka ayay ku qortay. markaa wax kale uma dhadhamayaan oo macaan ka dareemi maayo cunto dambe. intaas ayaynu ku soo ururaynaayo. wassalaamu calaykum.